haddii aan si qoto dheer lagu eegno hal qof, hal hay'ad ama hal dhacdo, maxaan ka baran karnaa? Tani waa su'aasha ay ka jawaabto cilmi-baarista kiiska, oo ah nooc cilmi-baaris oo diiradda saara hal unug sida qof, koox, urur ama dhacdo. Waa baaris si qoto dheer lagu eegta dhinacyo badan oo ku saabsan hal kiis oo gaar ah si loo fahmo dhibaatooyinka, guulaha ama xaalado u baahan xal. Cilmi-baarista kiiska waa mid tixgelinaysa xaalad gaar ah si ballaaran oo dhammaystiran, iyadoo la adeegsanayo ilo-xogeedyo kala duwan sida wareysiyo, dukumiintiyo, daawasho toos ah iyo qiimeyn dhacdooyin taariikhi ah. Tilmaamaha muhiimka ah: cilmi-baaristani waxay siisaa daraasadayaasha hal kiis oo si qoto dheer loo baaro. Waxa ay siisaa faham baaxad leh oo ku saabsan dhibaato gaar ah. Waxaa laga helaa tusaalooyin loo adeegsan karo meelo ka baxsan kiiska la baarayo. Tusaale, daraasad laga sameeyey dugsiga sare ee SYL ee magaalada Muqdisho ayaa ah kiis cilmi-baaris. Ujeeddadu waxay ahayd in la fahmo sidee ayuu barnaamijka la talinta ardayda mentorship-ka u saameeyaa natiijooyinka imtixaanka iyo dabeecadaha guud ee ardayda. Cilmi-baarayaashu waxay wareysteen macallimiin, arday, waalidiin, waxayna sidoo kale inta daawadeen duruusta la talinta. Natiijadu waxay muujisay in ardayda helay la talinta joogtada ah ay korortay 25% natiijooyinka imtixaankooda, ayna heleen kalsooni sare oo nafeed, yaraysana ka maqnaanshaha dugsiga. Tani waxay keentay in la ballaariyo barnaamijka la talinta laguna faafiyo dugsiyada kale ee gobolka. Cilmi-baarista kiiska waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah. Waxay bixisaa aragtiyo qoto dheer oo aan lagu heli karin tirokoobyada guud. Waxaa lagu ogaan karaa arrimo qarsoon ama la iska dhaafin lahaa cilmi-baarisyada kaleente. Waxay diiradda saartaa xal cusub oo gaar ah. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay daraasaynta adeegyada cilmiga bulshada, waxbarashada, maamulka iyo horumarinta iyo cilmu nafsiga. Marka aad rabto inaad si qoto dheer leh u fahanto xaalad gaar ah, cilmi-baarista kiiska waa qalab xoog leh oo lagu gaari karo aragtiyo micno leh. Inkastoo aan la gaarsiin karin guudmar ballaaran, balse waxay bixisaa fahan xeelad dheer oo waxtar u leh laguna dabaqi karo meelo ka baxsan kiiska la eegayo. Hal kiis oo si qoto dheer loo fahmo waa furaha xal u noqon kara kumanaan kale.